magacaygu waa Maxamed Cusmaan Makraan waxaan halkan tacsi tiiraanyada uga dirayaa saaxiibkeen marna walaalkeen Awil Daahir Salaad oo in muddo aan iskala shaqeynayna telefishinka Universal oo ka badan 11 sano geeridii shalay ku timid oo ku geeriyooday qarixii ka dhacay magaalada Muqdisho waxaan tacsi u diraynaa dhammaan bahda Universal sidoo kale waxaan tacsi tiiraanyada u diraynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo waliba caruurtii uu ka tagay walaalkeen Awil Daahir Salaad oo shalay ku geeriyooday qarax ka dhacay magaalada Muqdisho waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan haynaga siiyo isagana jannatul firdaws Ilaahay ka waraabiyo gadaashiisna Ilaahay nama fidneeyo sidoo kale waxaan leeyahay Awil waxa uu ahaa qof aad u wanaagsan dadka maamulka ah ee telefishinka aan la shaqeyno kuwooda ugu wanaagsan ayuu ku jiray muddadii aan isla shaqeynaynana waxa uu ahaa saaxiib dhow waxa uu sidoo kale ahaa walaal dhow marka waxaan ku xasuusan doonaa wada shaqeyntii wanaagsaneed iyo xiriirkii wanaagsanaa ee naga la dhaxeeyay muddada ka badan 11 sano ah ee aan ka wada shaqeynayna telefishinka Universal marka waxaan leeyahay samir iyo iimaan eebah naga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi tiiraanyo leh halkaan uga diraynaa dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee shalay ku nafwaayay qaraxyadii labada ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho si qaas ah waxaan tacsi uga diraynaa shaqaalihii TV-ga Universal oo ugu horeeyo walaalkeen Awil Daahir Salaad oo ah saxafi rugcada ah in badan mixnadan ku soo jiray waxaan tacsi la mid ah u diraynaa shaqaalaha Universal maamul iyo shaqaale iyo sidoo kale qoyskii iyo eheladii qaraabadii iyo caruurtii uu ka baxay Awil Daahir bedel khayr qaba inuu Ilaahay siiyo asagana qabriga Ilaahay u waasiciyo jannatul firdaws Ilaahay ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan ugu tacsiideynaa maanta dhammaan shaqaalaha telefishinka Universal iyo maamulka telefishinkaas ee ay ka baxeen qaar ka mid ah shaqaalaha ugu horeeya Allah u naxariistay wariye Awil Daahir Salaad oo ka mid ahaa rugcadaaga saxaafadda Soomaaliyeed waxaan si gaar ah ugu tacsiideynayaa qoyskiisa ehelkiisa asxaabtiisa iyo qaraabadiisa waxaan leeyahay sabir iyo iimaan Allah naga wada siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waan ugu tacsiideynaa waxaan eebba ugu baryayaa inuu naxariistii janna uu ka waraabiyo jannadii firdawsana uu galiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun anigoo ku hadlaya bahda suxufiyiinta gobolka Hiiraan magacooda iyo magaceygaba waxaan tacsi tiiraanyo la u direynaa ehelkii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday wariye Awil Daahir Salaad waxaan leenahay Ilaahay jannadii firdaws ka waraabiyo ehelkiisana samir iimaan ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka hore waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa qoysaskii iyo qaraabadii uu ka baxay Awil Daahir Salaad oo ka tirsanaa wariyaasha Soomaaliyeed gaar ahaan Universal TV iyo sidoo kale wariyaashii kale ee ku geeriyooday qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaan leeyahay qaraabadii iyo eheladii uu ka baxay sabir iyo iimaan Allah ka siiyo dhammaan wariyaasha Soomaaliyeedna ugu tacsiideynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun runtii waa geeri naxdin leh oo dhammaanteen taabatay intii markaasi Soomaaliyeed ama inta damiir leh ee dadka Soomaaliyeed kamid ahna runtii way taabatay Ilaahay uu naxariisto dhammaan teamka ka baxay Universal oo ugu horeeyo walaalkeen Awil Daahir iyo asxaabtii la socotay jannatul firdaws Allah geeyo eebaan u baryaynaa inuu naxariisto waqtigooda ayaa dhamaaday marka waxa ay kamid yihiin dadka Soomaaliyeed ee maalin kasto sida xaq darrada lagu xasuuqa ay kamid yihiin toodii ayayna halkaas ku dhamaatay aad iyo aad ugu xunahay falkaas dhacay waxaan markaan fiirino Awil wuxuu noo ahaa qof aan ku daysano oo tusaale noo ah saxaafadda Soomaaliyeed iyo wariyaashana tusaale u ah ayuu ahaa runtii qof hal door ah oo maanta dadka Soomaaliyeed oo dhan ka baxo ahaa eebaan ugu baryaynaa inuu u naxariisto oo jannatii firdaws ku abaalmariyo ummadda Soomaaliyeed oo adduunka ku kala noolna runtii waxaan ugu baaqi lahayn in ay dadkan sharwadayaasha ah oo maalin waliba in qofka indhaha u ah bulshada Soomaaliyeed ay ka dilaan ku talagalay in ay meel ugu soo wada jeestaan iska ilaaliyaan garabna ku siiyaan dawladda iyo laamaha amniga in arintaas aysan dhicin si hal door kale iyo qof kale muhiim bulshadu ah aanan loo wayn in maalin kasto tacsiil la diran waxa ka muhiimsan in laga gaashaanto dawladana kaalinteedii inay ka soo baxdaan ka rajeynina
dadka la haayo oo la sheegayo in ay ka dambeeyeen dhacdadaas oo walaalkeen iyo walaalaheen Soomaaliyeedba ay ku baxeen in sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda lagu horkeeno waxa ay shaqaysteen adduun iyo aakhiro waxaan filayaa inuu Ilaahay ka abaalmarin doono iyagu ciqaabtooda marsiyaan ayaan ugu baaqi lahaa dawladda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka tacsiyeynayaa anigoo ku hadlaya afkayga iyo afka saxafiyiinta gobolka Hiiraan iyo magacayga Jamaal Cali Yare geeridii naxtinta lahayd ee ku timid walaalkeen Caawil Daahir Salaad oo ka mid ahaa wariyaasha ugu waaweyn wariyaasha Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad waan ka tacsiyeynayaa murugadana waxaan la qaybsanayaa ehelkiisa iyo waliba dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed oo ka baxay waxa uu ahaa wariye aad u qiimo badan oo aan ku daysano waxaan ku xasuusan doonaa waxyaabihii wanaagga lahaa iyo doodihii oo iskugu keenayay dadka kala aragti duwan Caawil waxa uu ka tagay cid walba ay garan kartaa gacanka xaq daran ayaa dishay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar kaleba anigoo ah gudoomiyaha saxafiyiinta gobolka Hiiraan tacsidaasi waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun bahda Universal TV oo ka tirsanayna si gaar ah ayaan ugu tacsiyeynayaa idinka kaligiin idinkama bixin ee guud ahaan wariyaasha Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ayuu Caawil ka baxay sabir iyo iimaan Allah naga wada siiyo